iyo aad baad maasantay walaalkay injineer Cabdixaafid marka hore magacaygu waxa weeye Cabdilaahi Abubakar Maxamed Daahiye ku dhashay magaalada Muqdisho ku soo barbaaray dugsigiisii hoose ta dhexe iyo ta sare ilaa heer malcamadeed ku soo dhameeyay magaalada Hargeysa 2016 April 6 imid wadanka Bangladesh u imid jaamacad Dhaka International faculty Computer Science Engineering July 3 keegana dhameeyay jaamacadda Dhaka International University والله horta Cabdixaafid oo iska ogtay BD oo iska waayay badantay maantadan u dambeysay halkan joognay waxbaynu aragnay oo ogtahay marka haddii la yiraahdo 4-5 sano BD joogayba waxyaabihii aan arkay aad bay u badnaayeen marka bal laban soo qaadanay waliba laba habeen ka hor igu dhaceenba koobaad waxa weeye inaan aan walaalanayba wadankii u socotay habeen hore 12 bisha marka Turkish Airlines bilar ay raacisay marka adu labada habeen ma ay laga doonay airport ka tagto waxa dhacday waxaan ku labadii iska joogay xaafadda gaariwan soo kaxeynay xaafadan kugu soo maray deedna si aan alaabta kaaga qaado waxa dhacday labadii markaan xaafadda tagay ayaa ninkii waashmaanka haabay yidhi guriga ma fureeba oo maxaa dhaco ma furayo guriga 6 subaxnimo ayaa la furaa 6 ka hor aqli galba ma hayna furaba waxaan ku nidhinanto halkaasii taagantay shandadeedii macal tigidhkii baan tusnay tigidhkii intuu eegay buu yidhi 6 subaxnimo ku qorantay markaa 6 man ka furay aduu 15 qof meelahaas aanu hayno ninkii baan ku qaylno wax walba aan ku sameeyno maasha bas baan markaa soo kiraysan ninkii baska noodee driverka ahaa ayaanu yeernay balla hadal ku nidhi ninkii baa si walba la hadlay waxbuu ka maqli waay aduu 3 mir markaan murmaynay labadii barka habeenimo ay tay ayaan dari leeyahay Square Hospital baan ku cararo marka waxa jirtay xaajid askar ay wadato ayaan soo kaxay aduu askarigii baa u tago 30 second bay ku qaadatay inuu ninkii albaabka naga furo marka askartii ka baqanaa marka madaxadayga BD dadka madaxadayga way taas waa mid talabaadna waxa dhacday isla maalintaas ay dhacdo baska aanu soo kiraysanay ayaa waxa dhacday waxaan ku ilaabay shahaadadii secondary ahayd deedna shahaadadii waxaan islaa shahaadadu way ka lunto dari laayba inankii soo kireeyay ku ri ninka la hadal ninka marka hore wuxuu shahaadada ma arag ninkii baska lahaa ma arag buu shahaadada deedna islaabeenimo diintu la soo hadlay marka 100 tako ayaanay siin 100 tako ku laabanay siino wala soo loo ku ri shahaadadii ana haye 100 takeen kugu laa 100 kalena ii soo raaciyo office-kaygu soo doono marka adu office-kii baan ugu tago 200 takaan u soo dhiibo sidii baan shahaadada uga soo qaatay marka labadaas ay igu yaab ka badnaa wallahi waxaan tala siinayaa koobaadniyo horta in ay fooriyaannimada ay xeeriyaan ardayda Soomaalida inay mar walba sameeyaan wax la yiraahdo xadaarad iyo halkan video iska naqaanayo arday weyn nahay Bangladesh ajaanibtu waxa umay baran marka waxa fiican dadkii in wanaag iyo si wanaagsan loola dhaqmo waa koobaad talabaadna waxaan oran lahaa ardayda Soomaalida waa in ay kulay waxa jira arday badan oo hanle oo raba in mujtamaca Soomaalida BD halkii ka taagantay dad baa jecel inay meel fiican ay gaaraan marka dadkaas aan waxa oran lahaa hal dhiirigeliyo oo hadaad talakeen hadaad noqon weydo tala raac noqo marka ardayda han kale doonaysa inay Soomaalida meel ka soo baxdo waxa oran lahaa hal dhiirigeliyo diyaar baan waay wallahi horta Cabdixaafid buugaag badan oo akhriyay laakiin anu waxaan iskaga badanay dhanka movies-ka iyo waxa marka buugii ugu saameynta badnaa waxa qoray nin la yiraahdo Giorgio R.R. Martin ayaa qoray waa writer American weeye marka waxa weeye waxa la isku yiraahdo buugaag badan waxa la isku yiraahdo A Song of Fire and Ice nuqliyatul jaliid wan-naar marka way fiqrada badan yihiin marka kaan ugu jeclaa Game of Thrones waa la yiraahdo
waa musalsalkan serieskan Game of Thrones ninka qoray way kaas ay igu saameynta badnaan uguna jeclay haddaan madaxweyne ahaan la shayga ugu horeyn wax ka beddelaa horta waxa weeye tacliinta oo iska taqaanaa waddankeenu tacliinteedu aad iyo aad u liidataa marka ummadina waxayna jaxdaaba oo marka ay tacliinta waxa iska dhista marka tacliinta ayaan waxa ugu hore focuska saaray noqon lahayd wallahi su'aasha horta waxa yar fiicneed in dadka la weydiiyo lagu yiraahdo hebel ka waran laakiin maadaama su'aashaana weydiiso waanu kugu qaadanaa anna waxaan ka codsanayaa dadkana daawanaya inay jawaabtii ku qaataan ta koobaad nafteeda waxaan ku yar qeexi lahaa marka hore inaan ahay qof friendly inaan iska aho qof aduu asxaab badan samaysan kara iska bashaasho cid walba isfahmayaan talabaadna qof waxaan ahay aduu hanle oo wax yar aanu qancinba mar walba wax badan aan jecelahay ta saddexaadna waxa weeye badan aanu dadka igu yiraahdaan aduu xadaariyo waxba igu yiraahdaan marka ta saddexaadna waxaan oran lahaa nin yara xadaarada la yar socdo dunida hobbigaygu wallahi waxa weeye inaan aduu kubadda cagta aan ciyaaro inaan gameski waxaan ciyaaro iyo safarkii waxaan oo iska jeclay wallahi noloshu buug haday noqon lahayd waxaan ciwaan uga dhigi lahaa imtixaan waayo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا marka ilaahay wuxuu dunida u sameeyay waa inuu imtixaano ka amal wanaagsan iyo amal xun leeyimi marka noloshu waxaan oran lahaa imtixaan ma ugu magac dar la horta talooyin badan xun iyo qaar fiican ba hore waa leeysiye marka laba talood baan isleeyahay ugu wanaagsanaa inaan qaatay talada koowaad waxa weeye talada ay siiyeen hooyay aabila u naxariistay barigan dhameeyay secondary-ga anoo jahawareersano marna isla India tag marna Malaysia tag isla ayagu raan Bangladesh tag oo wax ka soo baro run ahaantii aad iimaan qancin Bangladesh oo maan doonayn inay yimaado Malaysia iyo meelahaasaan doonay iska khaamaysan laakiin aduu markay igula taliyeen Bangladesh tag waxaan dareemi karaa maanta man dareemi karaa faa'iidada ay lahayd inaan Bangladesh yimaado mar hataa soo taladii koowaad igu fiicneed talada labaadna inaan aan saaxiibnay baa isiiyay oo wuxuu siiyay 2018 wadankii aanu tagay aduu jaamacadiina si u soo yarnacay ganacsi wax halkan ka yar bilaabay oo ka yar niyad jabay jaamacadii Hargeysa soo aragno inaan ku sheegay saaxiib baan ahayn wuxuu igu niyo waxa ka baxo waxbarashadii dib ugu noqo marha inaga taladiisina ku oo anfacay marha labada talo ayaa abid igu fiicnaa la siiyo taladii ugu xumeydna wallahi waa laba talo xun bari la siiyay labadaba nin bay siiyay labadaba nin ii coach ahaayo aan saaxiib ahayn ayaa labadaba ii wada siiyay ta koobaad waxa barigan yara aad baan kubadda ugu fiicnaayoon xariif ugu ahaa marka ninkan wuxuu igu la taliyay uu igu yiri waxbarashada iska daayo la hadal reerka waxaad ku tiraahdaa dibadii waxa halay diro oo si aan kubaddan heer uga gaaro anna iska ciyaal baan ahaa wixii baan xaafadda ula tagay waa la soo diiday marha isagii aan dib ugu noqdo marka tala labaad oo xun buu siisay wuxuu igu yiri tahriibba marka anoo hawsha u diyaar garoobay baa adu wadanay kala kacday marka labada tala ayaa abid igu xumeedo la siiyo wallahi horta niyo dictatornimada wax aan jecelahay ma aha laakiin aduu si Soomaalida xilligan jirta dictatornimo way isaga baahan yihiin dictator inuu helo marka haddaan dictator noqdo mise nin kale oo dictator uu ina helaba waxaan kula talnaa in hawsha qabyaaladda liiraa awood isticmaalo ka dhex saaro ummadda Soomaaliyeed marka taasana aanu meesha ka saar laa wallahi magaaladan hore ugu soo noolaa iminkana aan aad u jeclay inaan dib ugu noqdo ku noolaado waa caasimadda Hargeysa weey
waddanka markaan joogay meeshii ugu fiicneed aan booqdo waxay ahayd Boorame ahayd halkan meeshii ugu fiicneed aan booqdo waa Cox's Bazar weeye marka 4 goor baan hor u tagay haddana kama xiisa dhacay inaan sanadkan insha Allah intaan tagin baan doonaa dib ugu noqdo hanaysteedu waa Rimsi weeyo imika magacaygiiba iyada sheeqisay marka Cabdilaahi dadku iska ilaaway nimka Rimsi baa la yiraahday magacayga cusub imika Rimsi waan oran lahaa laakiin Rimsi waaba inaanays weeye waxaan oran lahaa Cabdimajiid oo kale mise Cabdisataar baan oran lahaa FC Barcelona waa Argentina waa Lionel Andres Messi favorite kaarkaygu waa wali wadankii muhiim laakiin waa gaariga la yiraahdo Bentley gaarigaasaan ugu jeclay waxa way black-gaasaan aad iyo aad u jeclay artist waxa weeye nin weyno la oran jiray Leonardo da Vinci ayaa la oran jiray oo ninka looxadan Mona Lisa la yiraahdo ninka sawirey marka niyaasaan u jeclay ragan wax sawira xilligan la joogaa waa Drake intii ka horeysayna waa 50 Cent Soomaaliga imikaan ugu jeclay heesiisa waxa weeye oo laba nin weeyo waa Qamar Suugaani iyo Suldaan Seeraar aan markaan ugu jeclay waxa weeye qayb kamid ah shabeelada oo la yiraahdo Jaguar fuulkaan ugu jeclay wallahi waa harakooga gamekan ugu jeclay waqti xaadirkan waa PUBG-ga weeye والله موفي aan oran karo waan ugu jeclay ma jiro filmaanta laakiin series kan adu favorite leeyo kaasina waa Game of Thrones saan hor u sheegayba Red Messi London Adidas Manchester City CNN Africa والله habeenkayga shidanteenu Shah iPhone user baan والله mar walba khibrad baan dooran laanu Turkish Airlines Hargeysa Mundi marka hore waxaan u mahadnaqay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo anigiyo walaalkay Cabdi Xaafid halkan isukay keenay mar labaadkana waxaan u mahadnaqayaa Cabdi Xaafid oo igu soo martigeliyay maanta barnaamijkan ardayda seniorada BD kaga sheekeynay waayahooga BD marka waxaan ku leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantahay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad hor u socoto insha Allah BD na taariikh badan baad ka sameysay waxaan ku leeyahay Allah iyo cisiga